taqaana iyo cid meesha wax uga galay midna male mandate-ka xasan buu ku tagay okay marka mandate-ki waa dhamaaday ma jirto yiri annaga waa inaan ku soo baxnaa madaxweyne annaga cid annaga ahay waa inaan ku faracdeegnaa annaga xamar annaga iskale baaf digida ma helayno haddaan la waayo waa dhammaanayna calooshaan ma shaqaynayso caqligii iyo taladii dowladnimada waxay noqotay baaf digiri ah caqligii iyo taladii iyo dowladnimadii waxay noqotay ayadoo la dhammaaday oo askartii ay dhammaatay oo baydhaba dagaalkaada ogeed oo ka dhacay daraad oo guuta 9aad iyo guuta 8aad ciidankeedii iyo saraakiisheedii midna aan lahayn kuwa kale waliba waa la qarinayaa saraakiisha ku dhimatay soddon waa gaadhaan baa liya dagaalkaas ee waxaa laga soo bandhigay labadii rixaweyn baa laga soo bandhigay ciidankiina waa dhammaadeen ninka la soo hor istaagay oo ku qodbeeyey doorashada baydhaba ka dhacday hadda waa sidaas uu leeyahay caqligiisa wey qofna kuma dhiman ninka dad la hor taagan oo ku hor qodbaynaya asagoo waqtigu ka dhamaado wax sharciyad aan haysanoo mooryaan ah soo khalad maaha soo edab darro maaha soo waxaan jirin ma aha see ku hor fadhin karaa marka see lagu daawan karaa marka waxaa hor fadhiyaa dad maaha miya baydhaba dagaal kama dhicin miya baydhaba laguma baabi'in miya baydhaba meeya dadkeedii kulli ciidda ka hooseeya waa leede wax yar moogi waxaana ugu badnay daraad bay ahay marka ugu badnay daraad bay ahay wuxuu la soo taagan yahay wax dagaal kuma dhicin waa arkaysaan marka argaagtan baa horta ka muuqda uu isku dhex yaacsan yahay qofku marka uu degan yahay jawiga caadiga ku jiro hadalkiisu kontroolo yahay waa markuu mandate-ka haysto yaa arkay fiqi waraabe maartay fiqi waraabe hadda hadlaya waa la kala cararo maartay xamsan nuxuus waa dhunteen qof walba wuxuu ogsoon yahay wixii ka hadal siinayay oo wax ku faqaaq lahaa oo wax ku baqaaq lahaa oo wax ku caayay inay ahayd mandate hadda waxay og yihiin tilaabo kastoo ay qaadaan inay tahay sharci darro xasan marka sharci darro waddanka ku fadhiya hadda madaxweyne maaha waqtigu waa ka dhammaaday okay marka dadka noocaasa marka insaanka lagu hor qudbeeyo ayadoo sharciyaddii dhammaatay mandate-kii wax lagu cayrsanayey mandate-kii wax lagu boobayey mandate-kii wax lagu barakicinayey mandate-kii wax lagu dilayey intaba saaka ayadoo ay dhammaatay hadduu saaka filla Soomaaliya dhex fadhiyo dee waxba kama duwana waraabihii yiri hooyadaa waa baktiday igu tilmaamay yiri hilibkeeda soo cunaya hadday baktiday waxba igama gelinaanay baktigeede alasha waxba igama gel wax naxariis macnaha hooyanimo iyo deejir danqada malihi wey la yiri war waa nooshahay oo la yiri haddana farxo oo yiri waxba igama gelin ii sheega waa soo nuugayaa meesha ay joogto filla Soomaaliya sharci baa lagu fadhiyay sharcigana waa dhamaa waxa maanta uu ku fadhiyaa waa sharci darro waa waraabanimo wey baktigeedaan hiigayaa nolosheedaan cunayaa wax shaqaysa maaha adeer hawi awad hadalna in maadeeriya xamar laba mid baa laga rabaa dadka jooga labo wax saddexeeya male inay caddeeyaan inaysan waxba aysan xukumi karin oo ay ku fashilmeen waxaasoo dhan waxa kaaga daran garguurta oo uu yiri erey ah wuxuu yiri dawladdii maxamed siyaab hadda kalmadiisa halkaana kacaankii maxamed siyaab aan dawladu ka dambeyn waa erey aad u halis badan hadda muxuu ku fadhiyay kursigu ku fadhiyay muxuu ah dawlad ma ahayn miya wakaasa wuxuu inaysan dawladu jirin oo wax dawlad la yiraahdo aysan aqoonisaa ku ogaado aashaan ereygu wuxuu yiri maxamed siyaab barre waa kacaankii Soomaaliya oo maxamed siyaab barre yiri oo aan dawladu ka dambeyn ereyga ay qor meel igu qor ereygaas waa erey meel igu qoran wey oo ii yaal aduguna qorto dhageysi fiican u dhageyst inaan wax dawladu ka dambaynin inaan wax dawladu jirin dawladda maxamed siyaab barre kadib uu cadeey horta ogaada hadda wixii dhamaaday oo 4 sano oo ku doodayay wixii hadda uu kirkiranayo la dastuur baan bedelay dawlad ma ahayn ogaada wax dawlada inaan si jirin saas ku ogaanaysa oo aqoonin sharciyad dawladnimo inuu sameeyo wuxuu qabiil ahaan meesha ku joogay baa ku cadeynaysa haddana ayada laftirkeeda tilmaamay waxa raba markaa hawiyow laba mid baa laydinka rabaa waxa saddexeeya male muqdisho inaad tirahdaan caasumad ma aha dadka Soomaaliyeedow caasumad samaysta waa xaafad hawiye caasumaddii ma waa ka tagtay waa isku dhabaqday waa halowday waa halaynay caasumad hala sameeyo hala diyaariyo
sidii dadka Soomaaliyeed caasimaad ay wada leeyihiin oo cidna kale u sheegan karin tan annaga ursano baqtisanay oo ma noole hal cadeey oo xataa aan sameeyno halkaas oo istaa muuqafka cadeey ma ka dhaho xasan weerar ku qaado wax qabiil la yiraahdo iyo qabiil hebel bii leeyahay sidaan joojiya waad ka badantihiin waad ka adagtihiin waa kaligiis ciidan lama socdo waa been ciidan saaka xasan garab istaagayo ka garab dagaalamayo sharciyada haysta ma jiro wiilasha Soomaaliyeed waa wiilal Soomaaliyeed weey bannaankay ka taagan yihiin saaka wax mar uga burufsiyay sugayaan baasha inay isbedesho siyaasiga saaka isbedeli kara oo baashan qarxin kara la rabaa inaad qabiilnimo ku aataag oo aad wax ku baadi goobtaan xasan aad ku badbaadisaan isma ma shaqaynayso runta hal isku sheego heerka liya daarood ugaasiyada iyo garaadada xamar jooga mandate saaka waxa haysta Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam wax mandate waxa oraahadoodu qormayso oo sharciyad haysta oo adduun weynaha wax ka gadi kara Soomaalina wax ka gadi karo lagu daba faylsan yahay saaka waa labada nin iyo nimanka mucaaradka oo Sheekh Shariif ugu horeeyay isbedel doonkaas cid kale oo saaka sharciyad Soomaaliya haysto ku faari karta ma jirto maamul goboleedyada saddexda abar weeye garguurta iyo xukuumaddiisa waa dhacday waxa saaka uu ku fadhiyaa waa waraabaha inii sheegay oo wax arxana iyo wax dirgax iyo wax walaaga midna aan u haynin hooyadii oo yiri ii sheega baqtigeeda waa soo cunayaaye waa noo sheegay markii ii sheega caanaheeda waa soo dhamayaaye waka haddiina la mid ahayn oo ina la mid ahayn wax kale oo saddexeeya ma jirto cadeeya labada muuqaf xamar waa urtay waa baaslay ka guur cadeeya dadka Soomaaliyeed caswada dhisteen ayna ahayn dagaal ku qaado ciidan xabad ridayo mal ciidanku waxay rabaan waxay u bilaabi lahaa oo barnaamijkan fari lahaa baasha hadday isbedesho oo kacdo xasanna waa caraya ciidan saaka isku halaynayo la joogana hadda ciidan sharci darro wax kuma boobo wax kuma dilo sharci darro ma taageeraan ciidan waayo ciidanku waxay rabaan inay sii noolaadaan madaxay timaada la shaqeeyaan wanaag iyo waajib ay yeelaan shacabka Soomaaliyeed inay dadkooda yihiin bay ogsoon yihiin ciidanku waxay wax tilaalo ku qaadayaan waa mandate-ku haddii mandate-ku dhamaaday xasan ninkii dagaal ku qaaba kaasaa guuleystay ciidanku waa kulli waa ka wada baxaya saraakiisha dhan way wada cashirayaan ama waa laakiin haddii la isku aamuso jug meeshaadi joog bay noqonaysaa dawladna waa rabnaa xasanna kicin maynana ma shaqayso dadkaysa xala tuqadba soo jeedi wuxuu 2027 baa madaxweynaha ku egyahay 15 May indhaadayga noocaas way wax loogu qodbaynay waa baaf digiriyaalkii waa bilaal bushaawo oo kale ku wala midka wax inta loogu qodbaynayo waa baafafka digirta weeyay sanaga dhamaan baafka digirta marka sharci baa lagu cunahayay sharci baa waxanaha meelaha lagu wada tagayay laakiin sharcigu hadduu dhamaado baaf digir xaraan bay ka tahay laas caana inaan loo doonanin garowe inaan loo doonanin kismaayo inaan loo doonanin baydhabo inaan loo doonanin sharcigu waa wixii wax lagu waxaasoo dhan wixii wax lagu maamulanayay oo lagu soconaya baafafka digirta la isku siinayay sharcigana waa dhamaan wax kale yaala male marka dawladanaduba ha noqoto baafaf digir ah yaysan naga dhamaan madaxweyne marna yaana talaasulin haddaan talaasulin xaggee aadayna madaxweyne xaggee u dhaqaaqayna fataasaa marka caqli ah runaan isku sheegno adeer ama baafka digirta xushmeeya baafka digirtaana wuxuu ku yimid kuna imaanayaa waa sharcigu baafka digirta haba xaafado loogu doonanayay oo haba gobolo loo aadayay sharcigay ahayd hadda maxaraan bay ka tahay shaqeynay ama baafka digirta iyo bilaal bushaawi hal qiimeeyo ee xasan mooryaan ama hawiye uu tasho oo meesha xasan ka saar markaas dawlad baa isugu imaan karnaa dhisan karnaa waxa ay sheegaysaan iyo musharaxnimadiina inay run tahay baan ogaanaynaa annaguna markaas wixii qaban qaabaa iyo wixii ciidana iyo wixii hadala iyo wixii dhiirigelin inta way la garab taagan laakiin wax wada qaranno midiyaana kala qabsanno xasan sharci darraha noogu joogo xilligan ha ku hadaaqo sidii ilmo hooyadii naas u soo wado naaskii sharci darraha ku nuugahaya oo hooyaday igama guri karto oo igama ribi karto xasan saas u taagay waa ilmo yiri hooyaday igama ribi karto igama guri karto dawladdu igama dhici karto ka tagi maayo sharci darraha ku fadhinaya xamar anu ka iska leh
تضمين لو أتنك بيش الشرعة إيجاد عيه هدي لقوة الشهادة هيو أو الدولة نبى لقوة يانا هيو أن أجانو هدي تدك الدمير لا ويالي هنا أول مرة كان دارو بلا الدمير يهينا حعداتو وتضمين لو أتنك أسوم مركا كان هيدا هذا دايما أنا مركا وصف عم بوسي الكيسانية تضمين لو أتنك الجارسيو صف عم بوسي الكيسانية مركا عليا هي صدمك بعرش بكوكتا برمان بيعري برمان هذا الشرعية هجرنا ماله أسوق في متاعية قضبة ولا بدون هذا سنة برغوسيتا قضبة هذا أقرن مثل كاب تضمين لا تكا يقول لك كيس جديد لا تناد بهاري أقرنا هو أساس أنا واك كيس قال أساس هو ده ولا يبغى قضية هذا اللي قلتي مركا أغير هركا دارود اللي هذا وقاسية الجرادة ماشي تشوق حمراء يصير صوتنا وقريهني ما هذا هذا هو يالي سواء هو يسير madaxweynihii deni baa ka soo dhaqaajinaya oo la kulmay oo ka holwaayay oo sharci darro oo ku fadhiya ka diiday war ka joogin war dalka meel xun oogin adinkoo oday dhaqameedyo ah xasan saak in wax ka yeeli maayo baasha caalamku ka diiday waa aragtaan qabiilkiisu isku halaynaya marka nin asagoo awood u leeyahay wax ku go'aamin kara saaka ma 720 baa ku xariiqanaya saaka ma xamar baa leeyahay fil Soomaaliyana marka hore sharci kuma joogin hadda sharci kuma joogo caday taas oo cadaystay قبيل باكو جوجا واحد تقول إني ملي يرهدو إيو واحد ندام اللي يرهدو إيو واحد تستور اللي يرهدو أن كوتشوجا ما بتشيلين بوتاجين على فكاي كان يصير ما نفردنا يا إنت قبيل باكو جوجا أنا مركب واحد كرة ترى لا أنا ما كنت أروح حمر جو سكير صورك عقبش سكير صوتك اللي هنا هدو اللي هاي وإلهي أتقارنان هذا سياسيين يا هذا أو نغمتين يا هذا وحجرتين حمر سكير صهولنا هوية يا حمر هسكوهرين سؤال شيء كسوجيننا والله ما ضامدوي إني حمر دهان عسون ما إني حمر دجال كريدان حسن ماشي كسران مركا أمد صومال اسكو تماد وواحد والله لا هاي قصته أنت أسمع كسو كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.